بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأبو بكر محمد اللحو إن شاء الله تعالى waxaynu bilaabi doonaa xisaab ku saabsiisan bilowga hoose taasaan uga hadli doono amaynu ku baran doono afarta xisaab fal waa isugeynta kala goynta isku dhifashada iyo isu qaybinta. intaa markaan dhameyna kadib waxaan u gudbi doonaa jajabka noocyadiisa kala duwan, hadduu yahay jajabkii qumanaha, hadduu yahay midkii tiro dhafanaha, haddii uu yahay kii boqoliga ahaa, haddii uu yahay saamigii, haddii uu yahay jajab tobanley dhammaan. intaa markaan dhaafno kadib waxaan isku dayi doonaa haddii aan lidmahayo ilaa dugsiga dhexe aan ku gaadhin sideedaadka oo si toos aan u dubi doono. inta ka sokayso inaanu cutubyada ama xisaabaadka ugu muhiimsan inaan insha allahu tacaala inu sharixi doono. waxa weeye xisaabaadka haddaynu soo sharaxno inta badan dadka bilowga ahi kama faa'iideysan karaan, waayo waa xisaab xoogaa yaraad moodo inay adag tahay, balse haddaynu bilow kasoo bilowno waxaan rajeynaya in dhammaan iyagana ay jaaniskaas heli doonaan haddii aan lidma hayo. xisaabta marka waxaan ka bilaabaynaa ugu horeyntii xisaabta ku darta. marka qaabka aan u wadayna idin sheegaya. kow, maalinka ugu horeysa ama sida cashirka koowaad waxaynu sharaxeynaa xisaabtii iyadoo markaa tiro ah sida la isugu darayaa, haddii ka jirta si loo kala jarayaa, haddii tahay sidoo kale ku dhifa si la isugu dhifanayaa, haddii tahay u qayb si la isugu qaybinayaa. marka intaa sharaxna kadib cashirka xiga wuxuu noqonayaa waa isla xisaabtii oo ku darad, misalan ku darkii markaynu sharaxnay oo tiro ahaan isugu darnay tan xigta waa iyadoo mas'ale ah yani qofkii markuu fahmo xisaabtii qaabkii la isugu darayo wala tirooyinkii la soo dhigo qaabkii la isugu darayo markuu fahmo waa inuu kasta fahmaa, haddana haddii war ahaan ama mas'ale ahaan loogu keeno inuu ka shaqeyn karo. marka qaabkaas aynu wadayna haddii la yiraahdo insha allahu tacaala. waxaanu ka bilaabaynaa ugu horeyn ku darta waxaa xitaa ka horeeya waxa la yiraahdo tirooyinka. horta qaabka tirooyinka akhrintooda wax yar balka tagno. tirooyinka marka la akhrinayo tirooyinka horta waxay leeyihiin misalan 3 4 5 6 oo kala ay qoran. tirada marka la akhrinayo tiradan waxay ka kooban tahay 4 god weeye. tiradan godka waa 4 god, waa 3 4 5 6 yani waa godka koobaad, godka labaad, godka saddexaad, godka afraad. laakiin marka la akhrinayo fiirso 6daas waxay taagan tahay ama ku jirtaa booska koobaadka, 5tu waxay ku jirtaa booska tobnaadka, 4tu waxay ku jirtaa booska boqolaadka, 3duna waxay ku jirtaa booska kumaadka. marka la akhrinayo marka waxa leeyahay 3456 misla numberkan hadaan akhriyo waa 6 un kaliya 6 un weeye. markaan ku qabto 5 wuxuu noqonayaa 56. markaan ku qabano 4 boqolaad baa loo gudbaa, markaan 456. markaan ku soo qabano 3 waa kumaad baa loo gudbaa 3456. marka kumaadkani ilaa laga gaarayo 10 kumaad wuu soconayaa. misalan sidan oo kale markii la gaaro xisaabta noocaan ah 3 4 6 5 oo kale, kan muxuu ahaa koobaad, kan muxuu ahaa tobnaad, kan muxuu ahaa boqolaad, kan muxuu ahaa kumaad, kan muxuu ahaa 10 kumaad baa la leeyahay. marka la akhrinayo marka 5tu waa koobaadkii, 6du waa tobnaadkii, 4tu waa boqolaadkii, eber booska ku jira waa kumaadkii, 3duna waa 10 kumaadkii. marka la akhrinayo marka u fiirso waa la tirsadaa 1 2 3 soo ma joogto nacam halka hakad baa la gelinayaa 30,000 ilaa waa la isku qabanayaa 30,000 waa 10 kumaad weeye 30,465. qaabkaas loo akhrinaya. markaan misalan tiradan kale aan soo qabano 9 misalan sanadan oo kale aan soo qabano see loo akhrinaya marka waxaa loo akhrinaya tani waa koobaad, tobnaad, boqolaad, kumaad, 10 kumaad 99,999. qaabkaas loo akhrinaya. ka war haddii la sibdo hal 9 lagu sii daro waxay noqonaysaa 100 kumaad. misalan waxaa leedahay markaan 999,999 sidaas aad akhrinaysaa. marka waana ogaataa godka ugu horeeya koobaad baa lagu magacaabaa, kan labaadna tobnaad baa lagu magacaabaa, kan saddexaad boqolaad baa lagu magacaabaa, godka afraad kumaad baa lagu magacaabaa, godka shanaad waxaa lagu magacaabaa 10 kumaad, godka lixaadna wuxuu noqonayaa 100 kumaad. haddii 100 kumaad ay dhaafto markaas hawshu waxay gelaysaa million, millionna dadku si dhaaftana waxay gelaysaa billion, trillion, sidaas ku soconaysaa. marka akhrinta waa muhiim iyana insha allahu tacaala in hawsha laga bilaabo ayaan rajeynayaa. way
xisaabtana marka waxaan usoo gudbaynaa casharkeena ugu horeeya waxaynu insha allahu tacaala ku sharxi doonaa isugeynta weeye. Horta marka la isu geynayo xisaabta laba qaab baa lagu siin karaa. Kow, in qaabka hadda ay u qoran tahay in lagu qoro oo godadka ay isleeyihiin isna hoos taalo, iyo in lagu qoro tiro saan oo kale maalan buu fiirso haddaan kuu qoraya sidan oo kale lagu qori karaa. Waxaa lagu dhihi karaa maalan 535 lagu daray 24 hayse isugu daraysaa. waxaa isugu daraysaa sida hadda aynu dhehaynayo koobaad ku aadinaysaano akhriska soo marna tan waa 535 kasoo koobaad ma ahan tobnaad soo ma ahan soo boqolaad ma ahan koobaadkiisu waa kana marka koobaadkan 535 markaad ku daraysantaan koobaadkan soo qaad koobaadkan hoos dhigaysaa kan muxuu ahaa tobnaad soo ma ahan tobnaadka soo qaad tobnaadka hoos dhigaysaano kadib calaamada dhiganaysaa ilaan tiro kale ma taal deetana waa isku daranaysaa. Haddaad doonto meelaha qaar wax la iskaga buuxin karaa eber kadibna halkaas balaas dheh kadibna sidaa isugu gee. markii la isku daray waxa la isku daray waxa weeye waa koobaad baa lagu darayaa tobnaad baa lagu darayaa boqolaad baa lagu darayaa mahane koobaad tobnaad ha ku darin boqolaadna tobnaad ha ku darin koobaadna boqolaad ha ku darin sidaa ugu marka insha Allah tacaala weeye. Waxaan ka bilaabaynaa marka qaybtan ugu horeysa akhriskan ma fahamto maleynaya 321 baa loo akhrinaysaa lagu daray 231 haddii 321 lagu daro 231 maxaa soo baxayo waxa haddaynu sheegaynaa halkan baad u geynaysaa halkaas ugu horeyn maxaa kuu soo baxaya laba sooma labadaa kuu soo baxdood ku qoranaysaa labadana maxaad u geynaysaa saddexdan maxaa kuu soo baxay 5 sooma 2 3 u gee waa 5 5taasi waad ku qoranaysaa 5 3 ama saddexdana maxaad u geynaysaa 2 maxaa soo baxay 5 sooma fiiri 2 3 uge 3 2 uge same way 2 3 uge iyo 3 2 uge isku mid way saasa way 3 2 ugeena 5 way. Haddaba akhrinta marka akhrinayno waxa leenahay kan maxaa bixin wariyahay koobaad baan bixin kana maxaa bixin tobnaad bixin kana maxaa bixin boqolaad 552 sidaas aad akhrinaysaa. Labaad baynu gudbaynaa markaan u gudubno waxa rabnaa mid inaan ku xasuusiyo taasi waxay tahay haddii tirooyinka la isku daro ay 10 ka yar yihiin misalna laba tiro isku dartay tiro ka yar 10 baa ku soo baxday misalna waxa ku soo baxay 1 2 3 4 ilaa 9 markaas toos u dhiganaysaa sida hadda aan sameeyno kale. Haddii laakiin soo baxdo tiro marka 10 iyo wixii ka badan maxaa la sameeyaa wixii ka badan yani uguma jeedo ilaa 100 ka muuqdo laakiin 10 ilaa 19 hal baa la qaataa hal qaadasho la dhahaa 20 ilaa 29 laba la qaadanaya laba qaadasho sidaas ku dhigaysaa. Marka labadan waxa ugu weynaa 8 maxaa soo baxayo 10 sooma 10ka sidaas baa loo dhigaa maadaama sidaa loo dhigo 10ka tiradaas koobaadkan qoranaynaa koobaad marka booskooda maxaa waaye eber sooma eber halka dhigo halkaana maadaama tobnaadku yahay godkii tobnaadka la aadayna waxaan leenahay 6 ku dar 6dan ku dar halkan meeqa way soo 7 maahan 7badii booska tobnaadka yaalaan halkii maxaa ku daraysaa marka booskii tobnaadka ma isku noqonayaan marka 8 bay isku noqonayaan markay 8 noqdaan kadib wax ma wadataa marka maya sabab 10 ma gaarinba marka 10 gaarta hal qaadanayso Soomaa 20 haba sheegin marka 5tan un baa saddexdan u geynayna maxaa soo baxayo 8 tirada soo baxay akhri marka kani waa koobaad kana waa tobnaad kana waa boqolaad waa 880 iyo 880 saas akhrinaysaa soo fiiri 730 860 saas la akhriyaa hay'atan fiiri marka midaan kale marka u nimaadno halka waxa inoo yaalo 9 uge 3 uge 9 ama 9 uge 3 isku meeshu waa haddaan 3 ku darna 9 waxa weeye 12 labadaas godka koobaadka taal dhiga iyada halka dhigo maxaa ku soo haray kii tobnaadka soo maahan kii tobnaadka kala aadaysaa afartan iyo maxaa isku daraysaa labadani maxay noqonaysaa 6 soo ma 6daas waxaad ku daraysaa halkii oo booskii tobnaadka aad yaalay wuxuu noqonayaa marka 7 noqonaysaa yani 6 ahayd halka uge waa 7 7dana waxa ku daraysaa 5tan maxay noqonaysaa marka 12 maxay noqonaysaa wariyahay 12 waa anaga dhihina qoro labada halka qaado markaan saa lama sameynayo ilaa halka hadaan qaadno tiro kale oo ku sii darno halka aniga ma jirto saas awgeeda 12 toos aan u dhiganayna maxaan ku dhawriyahay 12 toos aan u dhiganayna marka u fiirso godkani waa koobaad akhrinta godkani waa koobaad tobnaad boqolaad kumaad mayno kun baad dhehaysaa marka 1200
toddobaatan iyo labo. Qaabkaas ayaad u akhrinaysaa. Qaabkaas ayaad u akhrinaysaa. Markaan waxaan filayaa inaad fahamtay qaabka looga shaqeynayo. Haddaadan fahminna waxaad yeeli kartaa inaad markaas aad ku celshato aan ka shaqeyso markaas. Marka halkan waxaa ku yaalo waxqabad. Waxqabadkan waxaan rabaa inaad ka soo shaqeyso adigu. Inaad ka soo shaqeyso ayaan rabaa insha Allahu tacaala. Waxqabadkan waxa weeye waa tii hadda oo kale. Haddaad fahamto qaabka aad u shaqeynayso, ilaahuma kun xabo lagu diro waad ka shaqeyn kartaa. Laakiin waxaa muhiim ah maad fahamtay qaabka looga shaqeynayo. Akhrinteedana maad fahamtay. Labadaas ayaa aad iyo aad u muhiim ah. Marka tiradan aan waxqabadka tirada koobaad waxa weeye 316 ugee 352. Maxaa soo baxaya? Halkaas aad ku qoraysaa. Markaad ku qorto dabadeedna waxaad sameynaysaa waa akhrinaysaa. Jawaabta ku soo baxdo akhrinaysaa. 251 lagu daray 413 jawaabta ku soo baxdo halkaas aad ku qoraysaa dabadeedna waa akhrinaysaa. 721 lagu daray 343 jawaabta ku soo baxdo halkaas aad ku qoraysaa kadibna waa akhrinaysaa. 825 lagu daray 839 jawaabta ku soo baxdo halkaas aad ku qoraysaa kadibna sidaas aad ku wadaysaa. Marka waxaan rabaa inaan ku sheego intaa kaliya ma aan u fiirso wax yar aan kor ku sii qaado. afartaa kore waad fahamtay soo ma? Afartaa kore aan ku calaamadeeyo. afartaa kore inaad iska darso inaan diidayaa. Afartaas kore markaysan aan kor u qaado marka maxaa ku soo baxay? lix kale soo ma? Marka afartaas ilaa lixdan isu geey meeqa waayo? 10 ma ahan. 10kaas ayaad ka soo shaqeynaysaa insha Allahu tacaala. Markaad ka shaqeyso dabadeedna waad miisaami doontaa. Miisaanka marka waxaan ka tusay asagana. Miisaanku waxa weeye yani misalan xisaabtan oo kale aan ku shaqeynaynaa. Halkan xisaab ku qoraya misalan 482 lagu daray 599 oo kale. Markii la isku daro 2 9 ugee 11 koodan qoranay. Leewaaniga dhigayna koobaad kala qoranaya. 8 9 ugee 17 halawada ugee meeqo 18 8 qoranay halawada. 4 5 ugee imisa 9 halawada ugee markaa man 10 soo ma 10 waa la wada dhiganayaa maadaama halkaas god uu ka xigin marka waa 1081. Marka miisaanku waxaan uga jeedaa marka miisaamayso qaabkan oo miisaami kartaa. Qaabkan ayaad u miisaami kartaa. Yani waxa weeye numberka tirooyinkaas kore u fiirso 482 markaysano soo saddex god kama koobna godadka isku daraysa 2 ugee 8 10 ma hino 10 ku waa hal iyo eber weeye hal ugee eber leedahay marka hal ma hino 5 afartaas ku daraysa marka soo 5 noqonayso 5ta halkaas aad dhiganaysaa. Haddana waxa leedahay halkaas oo 2 sagaalaad ma sida caadiga waxa la hadii 2 sagaalaad la miisaamayo waa iska tuur baa leeyahay iska tuur. Laakiin adoo tuur waxaad sameyn kartaa inaad isu geyso oo isku dageyso ayaad yeeli kartaa. Hadaad doontana dad sagaalaad buuxa aragtan waa iska dhaafi karaa. Hadda misalan hadaan tuurno hadaan isu geyno isku jawaab soo bixis u fiirso. Markaan 9 iyo 9 isu geyno waa 18. Marka 18 la isu geeyana hal iyo 8 yani waa 9. waxa weeye 9. 9 hadii lagu daro 5na waa 14. 14 hadii hal loo geeyna hadii yani hal iyo 4 la isku daro ayaga la isku daro godadkana waa 5. Marka hadii 2 sagaal iska tuuro maxaa ku soo haray 5 leen ku soo harno sidaas marka ku fud. Marka halkaas waxaan dhiganaynaa 5 baan dhiganaynaa halkaas aan ku dhigay. Haddaad doonto u fiirso halkaas aad dhigan kartaa. Adiga waxaa muhiim ah inaad maanka ku haysato tiradii hore iyo tirada. Marka waxay leeyahay 5ta iyo 5taas isku daraysaa. U fiirsiya maxaa isku daraysaa labadii tiro oo markaa ku soo baxay ayaad isku daraysaa. Imisa 10 soo ma 5 5 ugu 10. 10ku marka waa laba god waa hal iyo eber labadooda marka isku daraysaa. Hal ku dar eber imisa hal le Soomaan halkaas soo qaado halka marka soo qaadato halka dhiga marka haye godkana ku soo haray. Godkan waa godka go'aamin doona xisaabtaada ma sax ba mise waa khalad kan go'aamin doona asaga waa. Waxaad doontaa tirooyinkan oo jawaabta soo baxday ee ah hal eber 8 hal ayaan isku soo dardaraya. Hal ugee 8 9 Sooma 9 iska tuur aniga hadda dhihina dad doontaa tuurine halka uu ugee 10 soo noqon mayso 10 waxa waa hal eber Sooma haye isu geey hal eber isu geey marka maxaa soo baxay hal marka waa kaasa. Marka waxa laga fiirinayaa xisaabtu hadii labada ay siyaalato xisaabtu waa sax baa leeyahay hadayna isla haweysa laakiin waa qalad dib aad ugu noqonaysaa sidaas weeye. Marka casharkeenan ka ku xiga wuxuu noqon doonaa isla xisaabta oo ku dara oo laakiin mas'alooyina
saddex masale camal markaan ka shaqeeyo 5 ama 6 ama 10 baa idinku daraya marka si aad u soo markaasi aad u soo shaqeyso fahamkaaga aad ku tijaabiso marka qaybtan insha Allah taala intaas ku soo koobaya billahi tawfiiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.